sheekadu waxay ka bilaabatay magaalada Tokyo waxaana aragnaa geesigayada Satoru oo u socda shaqada. Satoru waa nin dhalinyaro ah oo caadi ah dada 37 wuxuu ku nool yahay nolol caadi ah qof kasta. Dhibkiisa kaliya ayaa ah in uu doob yahay oo uusan xiriir la lahayn noloshiisa oo dhan. Wax kasta oo kale wax dhib ah kuma qabin. Waxa uu la kulmaa saaxiibkiis ka yar oo la yimaada saaxiibtiis oo u baryaya in ay wada socdaan. Satoru ayaa u taga si uu u soo dhaweeyo oo uu u soo bandhigo in ay wada quraacdaan ka hor inta aanu imaan. Waxay aadaan shaqada kadibna masiibada ayaa dhacda. Waxaa meel fog ka soo ordaya qof wejiga soo duuban isagoo gacmaha ku haysta mindi. Satoru wuxuu ogaaday inuu u soo socdo hooyadiis markaa si dhaqso ah ayuu uga dhaqaaqay isaga oo wuxuu qaadayaa halkii uu ku dhuftay. Gacan ku dhiiglihii waa carara oo leenkiisu dhulka ku dhacay oo dhiigiisa sabaynaya. Dhiig baxa aad buu u culus yahay wuxuuna bilaabay inuu dhalanteed iska dhigo. Jidhkiisu aad buu u kululaa markaa waxaan rajaynayaa in dareenkani meesha ka baxo oo halkan waxyaab leh ayaa ka dhacay. Cod ayaa ka soo baxaya wax aan waxba ahayn waxa uu codsiyadiisa u bedelaa xirfadii ugu horeysay ee uu kasbadona waxa ay ahayd iska caabinta dabka. Intay sii wadeen Satoru waxa uu bilaabay in uu jeclaado waxyaalo badan oo loo turjumay. Xirfado ay ka mid yihiin tusaale ahaan in aanu dareemin xanuun iyo sidoo kale in uu iska caabiyo qabowga. Laakiin labada xirfadood ee ugu muhiimsan ee uu helay waxa ay ahaayeen xirfadda ugaadhsiga iyo xirfadda xikmadda weyn ee Caws Blinks. Indhihiisu way murugoodeen markuu dhameeyeyna wuxuu ogaaday inuu dhimanayo si lama filaan ah ayuu isu dareemay meel yaab leh. Wuu soo kacay oo wuxuu dareemay inuu jidh leeyahay laakiin aan lahayn addimo sidoo kale ma awoodo inuu wax arko ama xitaa hadlo. Muddo kadib ayuu la qabsaday dareenkan ugu dambayntiina waxa uu gartay waxa dhibku yahay. Satoru waxa uu isu rogay slime waxaana uu ogaa in uu mar kale ku dhashay adduun labaad. Waxa uu bilaabay in uu godkii uu ku jiray u dhaqaaqo oo uu dareemo waxyaabaha ku xeeran. Muddo kadib wuxuu ogaa in jidhkan slime ka ahi uu ahaa mid gaar ah sababtoo ah ma ahayn mid wuxuu u baahan yahay inuu wax cuno wax cabo ama xitaa seexdo oo wuxuu awood u leeyahay inuu nuugo dhirta godka ku jirta inkastoo uusan u baahnayn laakiin wuxuu sidaas u sameeyaa badeecada dartiis. Wax kale oo badan Satoru waa uu aqbalay oo waxa uu ka bartay xirfadda uu leeyahay in uu xooga saaro sixirka kaas oo uu awood u leeyahay in uu hawada ku dareemo qaybo ka mid ah jarmalku. Ugu dambayntiina waxa uu awood u leeyahay in uu arko wax kasta oo ku xeeranka. Dibna waxa uu arkay qofka la hadlaya yaabkuna waxa weeye in uu yahay masduulaagii caanka ahaa ee aad u weyn. Wuu argagaxay oo ku fikiray inuu heshiiska jebiyo oo uu ka cararo laakiin masduulaagii ayaa ka codsaday inuu horay u sii socdo waayo muddo dheer ayuu keligiis ka tegay. Halkan waxa uu isbaray isaga in uu yahay masduulaagii duufaanka mid ka mid ah 4 masduula ee waaweyn. Sidee nasiib badan tahay Satoru. Qofka ugu horeeya ee aad la kulanto noloshaada cusub waa mid ka mid ah makhluuqa ugu awooda badan adduunka. Feldora wuxuu bilaabay inuu u sheego sheekadiisa. 300 oo sano ka hor waxaa ka adkaaday halyey aadami ah oo aad u xoog badnaa. Kadibna waxay ku xidhay xayndaab sixir ah oo ilaa maanta socda. Satoru sidoo kale wuu og yahay inuu ahaa bini'aadam laakiin wuu dhintay oo ma joogo adduunkan laftiisa. Feldora wuxuu u sharxay inay jiraan dad aan isaga ahayn oo ka yimid adduunyo kale waxaana ka mid ah kuwa loogu yeero sixir wareeg ah. Qaarkoodna waxay ku yimaadeen si aan kala sooc lahayn laakiin isaga Satoru wuu ka duwan yahay kuwa kale sababtoo ah weligiis ma uusan maqal qof dib loo tuuray. Sheeko yar kadib Satoru waa la dhameeyey oo damcay inuu socdo laakiin wuxuu ogaaday in Feldora uu murugooday. Waxa uu waqtigaas u malaynayay in waqtiga uu keligii halkan joogo ay ku adag tahay inkasta oo ay ahayd maalmo uun. Iska daa masduulaagii 300 oo sano ka soo haray. Halkan ayuu geesinimadiisa ku soo ururiyey oo u soo jeediyey inay saaxiibo noqdaan. Muddo yar hanka Feldora ee ah mid ka mid ah makhluuqa weyn ayaa joojin lahaa isaga laakiin dareenka kelinimada ayaa sii xoogaystay wuxuuna ogolaaday inuu sii ahaado saaxiibkiis. Satoru lama yaabin in saaxiibkiisa cusub uu sidan oo kale ku jiro xabsi daa'im ah gaar ahaan marka uu ka barto inuu jiro 100 sano oo keliya oo uu dhiman doono sababtoo ah awoodiisa sixirku way yaraanaysaa marka waqtigu sii socdo. Wuxuu weydiinayaa xirfadda xikmadda haddii ay jirto dariiq lagu xalin karo xanibaadan marka waxay u sheegaysaa in sida keliya ay tahay in si buuxda loo nuugo. Sidoo kale taasi kuma filna waana inuu taageero ka helaa gudaha xayndaabka. Sidaas darteed wuxuu u soo bandhigayaa Lineka fikradda Dora iyo inuu ku dhex nuugo calooshiisa xayndaabka oo uu isku dayo inuu ka burburiyo dibadda gudahana wuu ka baabiin doonaa. Wuu qoslaa Feld isaga oo leh cod gilgilaya godka geesinimada leh ee uu u hadlayo. Mar haddii uu sidaas ku dhimanayo waxa uu go'aansaday in uu jidhkiisa oo dhan laad ku xidho oo uu ogolaado fikradiisa balse ka hor inta aanay bilaabin waxa uu u soo jeediyey in ay midba midka kale u bixiyo magacyo xidhiidh ka dhexayn kara sida shayga ay aadamuhu u yaqaaniin qoyska. Caws ayaa ku raacsan fikradda. Taariikhda iyo gacantayda Feldora waxaa loo yaqaan Tembosto taas oo macnaheedu yahay duufaan. Wuxuu jecel yahay magaciisa waa Feldora Tembosto sidoo kale wuxuu ku jiraa gacantayda. Sadarkiisu magac cusub buu leeyahay kan Rimiro isna wuu ogolaaday oo wuxuu naftiisa ku xardhay magaca Rimiro Tembesto. Kadib waxaa yimid waqtigii muhiimka ahaa oo Rimiro ayaa jirkiisa ku dheereeyay ilbiriqsiyo gudahood. Felodkii waxaa soo nuugay xayndaabkii calooshiisa ku jiray masduulaagii weynaa ee isaga oo kale ah ayaana meesha ka baxay oo aan la dareemin. Dhanka boqortooyooyinka bini'aadamka gaar ahaan boqortooyada Bromond kuwaas oo xuduudaheedu ay ka ilaalinayeen Feldora oo ka soo jeeda xayawaanada iyo cuntada iyo tan keliya iyada oo loo marayo awoodiisa sixirka ah ee cabsida leh. Waxaan aragnaa in mid ah wasiirada boqortooyada uu la hadhay hogaamiyaha kooxda waxayna ka wada hadleen arrinta rajo ah in xal la gaaro. Hogaamiye kooxeedka ayaa sheegay in xalka keliya ee ay hadda haystaan uu yahay in ay safaro ku tagaan godkii uu xilligaasi ku sugnaa. Remiro wuxuu ku jiray niyadda waqtigiisa mana dareemin wax baahi ah oo uu wareegayay. Godka dhexdiisa waxa uu rajaynayaa in uu helo waddo uu ka baxo. Waxa uu soo korodhsaday xirfado la yaab leh sida daabka biyaha
biyaha oo uu kaga takhalusi karo maska weyn kuna nuugi karo xirfadiisana ku qaadan karo. waxa kale oo uu ogaadaa inuu awood u leeyahay inuu qaabkiisa qaato, taasina waxay khusaysaa dhammaan makhluuqa uu nuugo. waxa uu joogaa 2 toddobaad si uu uga takhaluso daanyeerka uu la kulmo oo uu ka qaato awoodooda, iyo xayawaan sida fiidmeerta oo kale ah wuxuu awood u leeyahay inuu isticmaalo qalabka xanibaada oo isku dayaya inuu hadlo. ugu dambayntii waxa uu soo gaadhay albaabkii godka ka soo saari lahaa, waxaanu ku fikiray inuu dumiyo, hase yeeshee albaabkii ayaa si lama filaan ah u furmay, waxaana soo galay 3 tacbiir. sida uu sheegay, Remru waa bini'aadmigii ugu horreeyey ee uu adduunkan ku arkay, balse wuu qariyaa si aanay u weerarin. inta uu iyaga sugaya way galaan oo keynta ayuu u baxay. wuu farxaa marka hore marka uu dareemo fallaadhaha cadceeda oo jidhkiisa taabtay. wax badan kuma qaadato in uu hortiisa ka helo koox goblan ah oo jidhkoodu baan yahay, hubkoodiina uu gabaabsi yahay. Remru wuxuu u maleeyey inay weerari doonaan, laakiin wuxuu helay iyagoo ugu yeedhaya master oo weydiinaya inuu wax ka doonayo. wuu isku dayay inuu la hadlo, laakiin codkiisa oo keliya ayaa duufaan ka abuuraya meesha. goblanyadu si degdeg ah ayay u sujuudaan. waxay ka codsadaan inuu cafiyo, sababta dhaqankoodana waa inay dareemaan xooggiisa weyn. waxay heleen isagoo si naxariis leh ula hadlaya, sidaas darteed hogaamiyahooda waa la dhiirigeliyey oo u sheegay inay rabaan inay raalli ka yihiin isaga. waxay geeyeen tuulada goblin, halkaas oo uu kula kulmay hogaamiyahooda oo isna si xushmad leh ula dhaqma. geesigeena wuxuu la yaabay habkooda, sidaas darteed wuxuu fahmay xirfadda xigmadda in tani ay tahay sababtoo ah awra cabsida leh oo ka soo baxa isaga kadib markii ay qabteen. wuxuu ka codsaday inay qariso si uu u ogaado sida loola macaamilo iyo sida ugu dhaqsaha badan ee uu awra u baabo. dhammaan goblinsiyadu way nastaan. hogaamiyaha ayaa la hadlay isaga oo u sheegay in kadib markii la waayey waddankiisa dhaqdhaqaaqa bahalnimada ayaa kordhay oo ay soo weerareen iyay duurjoog ah, sababtoo ah kala duwanaanshaha xoogga. qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa dhintay, 60 ka mid ah oo keliya ayaa ku hadhay awood dagaal. waxay ka codsadeen Remo inuu ilaaliyo kadib markay arkeen xooggiisa. Remo waxa uu dareemay in arrintan ay ku adkaan doonto isaga, sidaa awgeed waxa uu go'aansaday in uu caawiyo. buurtii way ku faraxsan tahay inay kulligood u sujuudaan oo ay ku dhaartaan. laga bilaabo maanta Remo wuxuu ahaanayaa hogaamiyahooda. dhibka ugu horreeya ee uu la kulmaa waa jirkooda daciifka ah iyo tiro yar marka loo eego yeyda. wuxuu helay fikrad, wuxuuna ka dhigayaa inay habeenkii dayr alwaax ah ka dhistaan tuulada. yeyda waxay bilaabeen inay ku dhaqaaqaan hogaaminta hogaamiyahooda, waxayna rabeen inay tuulada goblin ka tirtiraan jiritaanka. isla markii ay yimaadeen waxay la yaabeen dayrkii alwaaxa ahaa, waxayna u maleeyeen in ay tahay dayr jilicsan oo aan u adkaysan karin weerarkooda. Remo ayaa u soo baxayay iyaga oo uga digayay inay u soo dhowaadaan, haddii kale way wada dhiman doonaan. waxa ay dareemeen in ay isla weyni tahay in ay iyaga uun kula hadlayaan qaabkii taariikhda, wayna sii wateen weeraradii. kadibna waxa ay heleen gobladii oo falaro iyo xadhig ku sugaya. wuu afaysan yahay, qofkii u soo dhowaadana wuu gooyaa. waxaa sameeyey Rimro laftiisa. taliyuhu wuxuu arkay askartiisii oo dhimanaysa, markaas buu si aad ah u dhaqaaqay oo ka gooyey dhammaan duntii hortiisa taal. Rimro ayuu u socdaa, balse waxaa si lama filaan ah u soo baxay dunta xariirta ah oo ku dhegay geesigeennu. waxa uu ku sugan yahay muuqaal argagax leh oo uu si sahal ah madaxa uga jarayo. waxa uu sidaas u yeelay si uu uga baqo xoolihii intiisa kale, balse weli waxay rabeen in ay dagaalka sii wadaan. markaas bay hogaamiyihii meydkiisii cuneen oo ay goblinsku waxay aadaan boqortooyada Dwarfes, iyo boqortooyada Dwarfeska ayaa weli ah boqortooyo dhexdhexaad ah oo dhammaan noocyada noloshu ay si xor ah ula macaamilaan, hadday dad iyo dunyaba, iyada oo ay ku mahadsan tahay awooddeeda ciidan iyo xukunka uu ku hoos jiro gacanta boqor wanaagsan oo xoog leh. safarkoodu wuxuu qaadanayaa 3 maalmood oo toos ah. markii badbaadadu soo dhawaato albaabka geesigeena wuxuu go'aansaday inuu qaato goblin. sababtu waxa weeye waa ka keliya ee hore u yimi. way dhaqaaqeen oo waxay iridda ka heleen saf dheer oo qoomiyad kasta ka yimid. markaasay istaageen oo markoodii qaateen. waagaas waxaa yimid koox bini'aadmi ah oo tacaburayaal ah oo ku majaajilooday geesigeena iyo cuntadiisa, maxaa yeelay waa bahal daciif ah. waxay ku fikireen inay ka takhalusaan iyaga mar haddii ay weli ka baxsan yihiin boqortooyada Dwarf. Rem wuxuu noqday mid argagax leh oo isku rogayey weyn oo cabsidiisa ku salaysan, laakiin sidoo kale waxay ku weerareen sixirkooda oo dhab ahaantii xitaa ma ruxin timihiisa. dabadeed waxa uu isticmaalay awooddii yeyga argagaxa leh oo xooggiisa qofna meesha oo dhan kuma istaagi karo. cagihiisa tacabayaashiina si degdeg ah ayay uga carareen. waxa u yimid ilaaladii dhogorta si ay u arkaan qaska meesha ka socda. way dhacdaa oo wax hortooda ah ma helaan marka laga reebo caaro qurux badan. markaasay qaataan oo xidhaan maadaama ay cuntadoodii tahay. halkaa ayuu taliyaha xabsiga kala hadlay Kayda oo uga warramay wixii dhacay bilowgii iyo in ay ahaayeen bini'aadamka iyaga la soo bandhigay. Kayda wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee rumaysta isaga, sababtoo ah erayadiisu waxay ahaayeen kuwa waafaqsan erayada markhaatiga. laakiin ka hor kaaliyihiisii ayaa soo baxay oo u sheegay in ay masiibo dhacday. saaxiibadiis oo ka mid ahaa kuwii qodaya miinada ayaa waxaa soo weeraray bahal aad u xoogan, waxaana hadda ay soo gaareen dhaawacyo halis ah. dhibaatadu waxay tahay in aanay jirin qiyaaso ku filan oo lagu daweeyo. xilligaas ayuu Rimiro sigaar cabaya oo uu u sameeyaa foosto dhan oo dawo ah. Kayda oo aan fakerin ayuu ka haystay oo u tegay saaxiibadii. muddo ka bacdina wuu la soo noqday. xaaladooduna way wanaagsan tahay, waxaanay uga mahad celinayaan Rimiro naxariistii aanu filayn. weligood ma iloobi doonaan isaga. Kaydo ayaa xabsiga ka soo saaray oo wada casheeyey. wuxuu weydiiyey waxa uu rabo soo noqosho ahaan. waxay uga sheekeeyaan geesigeena sheekadiisa iyo inuu raadinayo qof ku wanaagsan dhismaha iyo samaynta dharka. Kaydo ayaa u sheegay in aanu werwerin oo ay isla markiiba ka haysteen nin bir ah oo magaalada dhex jooga sidii ay ahayd. kani waa Kaijin, Kayda walaalkeed ka weyn. wuu gartay Remir wuuna ku mahadsan yahay sababtoo ah dhogorta uu badbaadiyey ayaa weli ah arday shaqeeya. waxay weydiiyeen codsi
codsigiisa markaa waxay u sheegeen geesigeena inuu doonayo inuu u raaco dhulka goblin oo uu ka shaqeeyo warshadaha iyo dhismaha. Keijin wuu ka cudur daartay maadaama uu hadda aad u mashquulsan yahay, taasina waxaa sabab u ah wasiir musuqmaasuq ah oo lagu magacaabo Fistakaas oo dhigay meel aan laga maarmi karin kana codsaday inuu u sameeyo 20 seefood. Sixirkaygu waa 5 maalmood oo keliya, taasna waxaa lagu marmarsiyoonayaa in ay dhowaan dagaal geli karaan. Dubena 1 seef oo keliya ayuu ka dhigay, waxayna ku hanjabeen in ay sumcadiisu dhulka ku sii jiri doonto haddii aan amarkaas wakhtigeeda la iibin. marka laga reebo in wakhtigu uu aad u yar yahay 20 seefood, laakiin sidoo kale ma jiraan wax ku filan oo sixir ah oo macdan ah oo ku jira miinada oo uu halkan ka codsado inuu seefteena soo dhex galo oo uu ka codsado in uu seefteena soo dhex galo oo uu halkan ka codsado in uu seefteena soo farageliyo oo uu ka codsado in uu seeftiisa soo dhex galo. marka hore wuu arkaa gudaha ayuu ka nuugaa, wuu gorfeeyaa kadibna isagoo isticmaalaya birahasi